السلام عليكم صاحبي الكسو دوادا halkan waa macadka barashada ee cilad bixinta kombiyuutarada Sikor magacay waa injineer Cabdiraxmaan Cabdalla maanta waxaan idin daadin doonaa casharka saddexaad ee MS Excel waxaan ka bilaabi doonaa selecting Excel data see loo doortaa data ku jirta Excel waxaan noqon kartaa selection kaas in maxaan ku raraa multiple cell la doorto haddaan rabno inaan sheet cusub soo furno waxaan leenahay file new aan leenahay mid blank aan qaadanayna so marka waxaan rabnaa inaan halkan data ku jirto oo ah 300 halkan waxa ku jirta 400 marka inaan cell kaligiis aan doorto darab kaligan ku dooran karaa in cellka aan doorto darab laba cell isku xigto calaamadda markay saas noqoto mouse-ka marna saan waay waxa laga wadaa selection marna saan waxa waa duplication wax badis waay waxa rabtaa items ayna badis rabtaa marna waa saan oo move waay in aad qaadido file-ka meel kale aad geyso hadda darabno 300 waxay tahay file-ka loo yaqaano column-ka loo yaqaan F row-giisa shanaad uu yaala haddaan marka B3 inaan geeyno column-kan qaada lagu leeyahay ay cell-kan halkan aan kala geynana B3 godka B3 halkan godka waxa loo yaqaan name boxkan B3 sababtoo B waa column-ka row-gana waa row-ga saddexaad ya row-ga saddexaad yaala 1 2 3 column-kana waa column-ka B3 waa marka qiimahan oo kale marka inaan qaadno daaran markay saanta ma la qaadi karo markay saantana badis waay oo hadda saan 300 badi daaran markay saan noqotaan klik qabana hoos u jiida inaan badi hada u baahna soo doo badsoomay waa badiyay marka inaan qaado hada u baahna control z inaan qaado hada u baahna saan waa doorasho saan oo kale inaan saas daayira selkaas oo kale la doorto saan marka ay tahayna waa move kligan qabana waa jiida halkaan oo kale aan keenaa waa F5 column-ka F row-giisa shanaad ayuu yaala qiimahan waa sax marka haddaan rabo in godkan F iyo G inaan doorto haddaan rabo G5 iyo F5 inaan isku doorto haddaan rabo waxaan sameynaa markay saan noqotaan klik qabana waa ku jiidaa saan waa highlight gareys saas marka ay tahay calaamaddu waa highlight gareys waxbaad dooranaysaa laakiin saan marka ay tahay waxbaad badinaysaa macna waxaad badinaysaa value aad badinaysaa saas laga wadaa marka saan haddaan inta iraaha saan ay iraaha 300 aan badinaa saan haddaan iraaho saan aan iraaho oo ku jiida 400 aan badinaa saan haddaan iraaho saan iraaho aan badinaa marka saas in u fahantaan rajayna control z saas loo sameeyo selection multiple data see loo doortaa Excel marka la joogo okay haddaan rabo selka inaan color ka badiyo move x waxa see loo sameeyaa marka inaan badiyo haddaan u baahanahay file-kan waxaan sameyn karaa kan oo kale inaan badiyo haddaan rabo waxaan tagaa Excel-keena aan ku laabto 300 waxaan leeyahay kligan ku siinaa right click aan leeyahay right click haddaan iraaho copy markuu uu copy yeelo calaamadda saas iskaga daba wareegaysaa marka copy aad wadaawo meel kale aad tagaa waxaan leeyahay right click aan leeyahay waxaan leeyahay paste 300 aan paste garay ama waxaan sameyn karaa control waxaan dhigi karaa si kale aan ku biin karaa waa control C sidaan wad ku soo marnay halkaan aan tagaa control V ama waxaan dhigi karaa x aan u isticmaali karaa control x inaan ka iraaho waxaan geynaa halkaan aan geynaa control V godkan oo ka soo tirtirma ama waxaan sameyn karaa godkan oo kale aan ka qaado daro control x waxa u dhigo mouse-ka marka la isticmaalayo inaan soo jiido marka control x waa mouse-ka keyboard-ka waaye control move-na oo saan marka iraahana waxa ay suur gelinaysaa inaan jiido godkaas aan geeyo haddaan rabo godkan aan keeni karaa marka calaamadda saas noqotaa soo qaado halkaan aan keenaa sidoo kale waxaan sameyn karaa inaan maqaskaas isticmaalo home tab intaan tago keyboard group aan ka doorto cut oo halkaan aan tagaa markaas waxaan sameynaa paste aan halkaan ka dooran karaa midka rabo ayaan ku paste garan karaa saasna loo isticmaalaa cut iyo maxaan ku ilaahay isha copy labadaba uu leeyahay okay waxaan rabaa marka inaan wax copy waa soo mar waa sameynay see row loo soo geliyaa see row column loo soo geliyaa see row loo titiraa see column loo titiraa intaas inaan sameeyno haddaan u baahanahay see row loo soo gelishaa waxaan u baahanahay tusaale ahaan halkaan waxaan kusoo qoray data qoray waxaan ku qoray meeshaan tusaale ahaan product name saas oo kale waa soo marnay haddii selkan uu magacaada product iyo name laba column isku galaan magaca halkaas magaca laba column galay oo ah C uu ku jira D uu ku jira marka C ina weynayna darno kaligeed aan deeqsin saas aan leenahay oo kala jiidayna product name quantity inta xabo ay yihiin price iyo total kuwaas ana qornan rabnaa okay ama tusaale for example price aan ka tagnaba ka soo qaad waxaan ka tagnaa price inta waxaan ka dhignay total price aan ka tagay marka waxaan u baahanahay inaan qurxiyo si aan qurxina calaamad marka soo noqotaan ku jiida waxaan tagaa filterkaas aan tagaa font ka koreyso colorkaas aan dooranaa fartan waa weynina
boldian ka dhigaa qoraalkan cadaan ka dhigaa si uu soo baxo quruxdiisa. marka saan markaan u sameeyo waxaan arkaa marka product name iyo quantity price kii ama marka soo soo gelina price ka inaan column cusub soo geliyo hadaan rabo laba qaab soo gelin karaa right click ku soo gelin karaa oo insert inta iraaho insert aan leeyahay markaas column inta soo gelin karaa. okay marka ama waxaan dhigi karaa halka inta tago right click insert saas oo sida mouse loogu soo geliyo column cusub soo gal halkan oo waxa ku qori kartaa meeshan price saas ku qori kartaa column cusub ku soo dar because column waa kuwan ku taagan waa column hore u soo marnay casharkeena koowaad column wuxuu yahay rowna kuwan waa jijifa data la soo gelinaa marka hadaa u baahanaa marka saan ku soo gelinayna right click ku soo gelin karnaa si kale aan ku soo gelin karnaa saa waxaan ku soo gelin karnaa anagoo isticmaalayna mouse-ka right click-na aan dhahin waxaan tagi doonaa cell home tab aan tagaynaa cell group waxaan ka dooranaa insert waxaan leeyahay marka insert maxaa soo gelinaa insert column aan leeyahay markaas column soo geli column waa soo gala marka qaabkaas aan ku soo gelin kartaa labadaas qaab aad ku soo gelin kartaa price aan qoraa so marka hadaan rabo maxaa inta aan gatay laptop shirkadeyda laptop ay maanta gaday quantity meeqa xabay gaday 3 xabay gaday price-keedu waa meeqa $300 okay markaan waxay gaday tusaale ahaan laptop-kan hadda wuxuu ahaa for example HP 3 xaba la gaday 3 xabadiiba $300 la gaday totalka waa imisa waa 3 lagu dhiftay 300 totalka asaa xisaabin doona waa gaari doona 10kaas hadaan rabno kala mobile Samsung A10 taasoo kale inaan xisaabin hadaa u baahannahay maxaa la gadaa waa $150 sorry 5 xabo waa xabadii waa $150 marka totalkiisu waa imisa waa arki doonaa TV la gaday 5 xabo waaye ama 50 xabo la gaday xabadii waxaa la gadaa marka tusaale ahaan $120 meeqa xabo la gaday halkan waxaan qaaday freezer qaboojiye waaye waxaa la gaday 10 xabo xabadiina $1 la gadaa meeqa xabo la gaday totalka waa noo imaan doonta xisaabta sida loo dejiyo. okay marka xisaab ahaan lacag inaan ka dhigna hadaa u baahannahay waxaan sameynaynaa price-kan halkaan tagaynaa column-kan dollar ka dhiganaa saa u soo marnay home tab tagaynaa waxaan tagaynaa number group style u dooreynaa calaamada dollarka siinayna saas u dooran kartaa so hadaa u baahannahay oo kale inaan farta bold ka dhigno diyan taabana inta kulligiisaan doorano farteena bold inaan ka dhigno hadaa rabno saasaan dhigi karnaa. okay marka waxyaabaha xiga aan rabnay inaan daraasayno waxaa kamid ah adding comment so column see loogu soo daraa column waa kusoo darnay waxaan rabnaa marka see row loogu soo daraa row maxaa laga wadaa labadan dhexdooda waxaan rabnaa laptop-kan iyo maxaan ku dhaha mobile-ka dhexdiisa inaan kusoo darnaan rabnaa row inaan kusoo darnaa u baahana oo waxa u dhexeeya tusaale waxaa ka tagtaa lagu yiri meesha fan qawoojisa ka tagtay qawoojisa kusoo dar see ugu soo daraya marka right click insert aan leenahay marka row cusub halkan kusoo darsamo kor ka fool hadaa rabto inaad dhexda gelisana saas aad leedahay oo laptop 3 iyo 4 dhexdooda aad soo gelisay row right click aad leedahay insert aad leedahay row halkan soo darso marka aan leeyahay halkan aan tagaa aan leeyahay fan marxad 3 xabo waa xabadii $20 waa totalkeeda waa meeq saas loo soo geliyaa ama waxa soo gelin kartaa inaad tiraahid halkan aad tagtay labadan dhexdooda harta inaad wax soo gelisid seetagay marka home tab tagaysaa cell group waxa ka dooranaya insert waxa ka sitay insert row hadaa wuxuu ahaa sheet column u ahaa hadda insert row soo geli macnaha row soo geli marka waxa mar row soo geli marka row marana wax soo dhex gali doonaan fan iyo mobile dhexdooda. okay waa kaas halkaan oo kale waxaan leeyahay markaas waxaan soo gelin karaa tusaale ahaan iPhone saasaan leeyahay xabadii waxaa waaye waa laba xaba soo qaatay $1,300 saasaan leeyahay marka saasa usoo samayn karaa marka waxaan rabaa see column u tirtiri karaa column-kan totalka kale inaa tirtiri hadaa u baahana kiliyan ku siina asaan dooranaa ta waxaan leeyahay halkaan tagi karaa delete waxaan dhigi karaa delete sheet column ka tirtiri column-kan waa bixi doona totalka inaad tirtiri hadaa u baahana total wuu baxaa control z inaan soo celiya haddaan rabo si kale aan ku tirtiri karaa right click aan dhigi karaa delete aan leeyahay marka delete marka iraan wuu baxaa saas waa samayn karaa labaas qaabood aan ku tirtiri karaa rowna saa u tirtiri karaa fankan oo kale tirtiri dib yiraahdo right click aan leedahay right click delete aan leedahay marka fan way baxdaa control z si kale ku saari kartaa jirto column-kaas oo dhan aad dooratay home tab aad tagtay dabacdi waxaad tagaysaa cell group aad tagay delete aan leedahay delete row aan leedahay fan wuu baxaa marka saasna waa lagu tiri karaa
sidoo kale waxaa jirto maxaan ku yidhaha ishak in lacagaha xisaabaadka ee shirkadda ay leedahay in lagu yidhaha comment ku muuji. tusaale ahaan qarashaadkaasaan u qoran waxaan waa product item iyo product quantity iyo pricekeeda waa lacagtan oo kale shirkadda iyadoo xisaab xir la sameynaya waxaa halkan kusoo darsoomay lacag timid marka income timid lacag income timid halkan lagu qoray marka halkan lagu muujiyo waxaa la yidhaha 100,000 $10,000 waa sorry $100,000 rabaa hal seeraan raacina $100,000 shirkadda u timid marka product la gadana ma ahan xisaab xir la sameynaya xisaabtan oo kale total in loo sameeyo rabo la dijiyaa loo baahan yahay so marka waxaa lagu yiri hebel xisaabtan excelka ee shirkadda aad noogu shaqeynaysid ee $100,000 halkan ku jirto kamid ma ahan la product la gada sababtoo ah item la gada ma ahan meesha lacagta marka maadaama excelkan ay ku dhex qoran tahay waxaa lagu yiri ka saar marka totalka guud ee xisaabta shirkadda la dijinayo ee dhaqaalaha soo galay sanadka 2020 tusaale ahaan marka waxa leedahay marka comment ku muuji lacagta inaysan ahayn product la gaday ama item la gaday inaysan ahayn comment waxa la yiraahdaa jar marka comment inta laga helaa review tab waxa ka sii tagaysa comment group waxa ka sii tagaysa new comment kale ku siinaysa su'aalkan oo kale waxa ku qoraysa marka faahfaahin waxa leedahay marka lacagtani faahfaahin noocaas siin kartaa marka calaamadaas qofka markuu arko comment muxuu taraa marka faahfaahin waa oo lacagtan tusaale marka xisaabtan la xiraa waxa leeyahay laptop waa kan HP 3 baa la gaday pricekiisa intaas waaye totalka halkan waa la soo saari doonaa gaari doonaa iPhone waaye laba telefoon la gaday xabadii waxaa la gadaa 1300 labada xab meeqa totalkeeda waa soo saari doonaa sameyn doonaa mobile la gaday Samsung waa A10 waaye 5 xabadii $150 totalkeeda la soo saari doonaa waxaan marka mid walba jirtay waa caddaha warqadan waxa ku caddahay laakiin income-ka dhaqaalaha uu soo galay ka yimid telefoon la gada ma ahan muxuu yahay qofka shirkadda markuu halkan yimaado uu ogaana marka in faahfaahin ay tahay faahfaahin cad ah oo ku saabsan maxaan ku yiraahdaa lacagtan meesha ay ka timid qofkii wuu cadaanaysaa marka see loo muujinaa marka lacagta marka qofka uu dul tago halkan uu tago wuxuu arkaa lacagtani kamid ma aha miisaaniyadda 20 ee waa lacag ama oo ka timi hebel yes uu dareema marka qofka magaciisa la yaqaan marka taas kartarka uu dul geena falaartan guduuda marka dadka comment excel ka wax ku xisaabsado way yaqaaneen waxa loo leeyahay inay tahay comment oo lacagta waxa ujeedada ay tahay oo miisaaniyadda xisaabaadka dejiska totalka guud in lagu daray aysan ahayn I hope ina fahantaan rajayna alxasil waxa loogu talagalay lacagta commentiga lacaga mucayan ah tusaale ahaan oo kale in lagu muujiyo waxa kale loo isticmaali karaa ardayda markiska imtixaanaadka dhacdo oo kale in la muujiyo ardayda siiro keenay maamulka xisaabta maxaan ku dhahay imtixaankii saxay ama xisaabta guud soo dejinaya excelka ka dejinaya ama in la daabaco u baahan xafiiskii warqadii soo martay ayuu arkay warqadii oo committee ku muuqsan markaas wuxuu arkay zero oo qorantaa zero markuu arko zero lagu qoray committee oo ku muuqsantaa markaas aan leeyahay ma macallinkii bay warqada ka luntay ma macallinkii baa iloobay si aan looga shakin committee ku muujinaa marka macallinka halka markuu yimaado wuxuu leeyahay maadadani hebel wuu qishay ama maxaan ku yiraahdaa isagoo si imtixaanka sharciga loogu talagalay ruleski regulationkii ka soo bixi waay marka sidaa darteed zero la sii marka maamulku uu dareemayo marka in ardaygii aan lagu xadgudbin committee buu ku muujiyay macallinka marka excel marka saas waa marka committee faa'iidadaas uu leeyahay in wax walba oo xisaabaadka la xiriira ama wax mucayan ah faahfaahin guud laga bixiyo siday waxaas u dhaceen marka lacagtan in laga saaro listiga ayay muujin doontaa committee-ga marka daarna inaan edit gareyno waxaan tagi doonaa review tab aan tagaynaa committee group edit group aan leenahay marka inaan tirtirna hadaa u baahana ya waa tiri karnaa waa warbixin kala ku qori karnaa kala daarna inaan delete gareyno asaan dooraneynaa mar walba laakiin committee-ga godka ku muujinayso inuu ku dooran yahay delete hadaa tiraa delete ku bixi doonaa uu bixi marka committee-ga see you next lesson halkan macadka barashada ee bixinta computer si kor magaca Injineer Cabdiraxmaan Cabdalla do more practice insha Allah si wax badan aad u qabsatid